وعيشه معاشا مثل وعيشه وقتا للمعاش وي إلهي سبحانه وتعالى وحا وجدي إن هبينك مركاسي وحوي وقت لراحة يستيهات أو ما شقادة إيا اللي جوجو أو وحوي جيركو أو السريح maalintina waxa weeye waxa loo jideeyay in markaas la ceysho oo la tasarrufo xawaaishti iyo waxa soo dhan la aado ayaa loo jideeyay hadda arintaas hadii la cagsiyo waxa ka imaanay dhibaato ka imaanaysa iyo maslaxa xumaa ka imaanaysa iyo caafimaad darro iyo dhibaato ka imaanaysa haddana Allah wuxuu dhahay wabanayna miyana dhisin fawqakum korkiina sab'an todobo shidaadan oo adag waa todobada samo oo korkayna ah إلهي وحده سبحانه وتعالى وبنينا ميانا للسنة وداه الله فوقكم كركين بني آدم سبع سماوات وي تضبصموا شدادا أو أدق وحوية قوية أو محكمة ولا صغيرة لا تؤثر فيها مرور الزمان زمن كاس أو صعدة أو مراية منذ إلهي سماوات كاس يا رأس أبوري وحمر كاس سامين أو يكوي عشان لمر oo la dhihi maayo meeshaan ay ka duqoodo halkaan ay ka soo jabaysa halkaan ay saan ka tahay sida sanacada bani aadamka waxa weeye muruuru zaman ayaa saameynaa si kasto oo bani aadamku wax u adkeeyo la budda waxa weeye in waqti yarba uu la yiraahdo dayactiro u baahan yahay ayaa imaahaysa sababtoo ah awoodda Ilaahay subhanahu wa ta'ala ma laha samada sidaas oo hadda markaas xajmigeeda laga sheekay karin ayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala intaas ay taagan tahay mundu Ilaahay abuuray إلى أن تقوم الساعة سيدا وحبا إسكا بدل مايا قرح دي إيا حدقيه إيا ضيح إيا كل سيدو دواي وجعلنا ميانا يلنو لإلهي سبحانه وتعالى سراجا فينوصو لإلهي وهاجا نو افتين بدن هدنا السمدة كارهان وحال قوضا سماوات كورنا وي وحا إلهي سراجا وهاجا وي وحا وي مركا وحال قوضا قرح دا إيا لقوضا وسماوات كساس كلينا لقدقي لقمتهيني انتفاع إلهي أسمي سبحانه وتعالى وجعلنا مياني نور إلهي سراجا الإلهي وهاجا أو افتين بدن نور أو افتين بدن سراج وحال إلى مركاسي ونور كمركاسي كليس أساقو مركاسي اسكسا ميسان oon meel kale wax ka soo qaadanin qoraxda waxa weeye nuurkeedu ayada ayuu markaas ku sameeysan yahay waa qoraxda ayaa laga wadaa maxaa yeelay kowkab oo nahaariya weeye oo waxa uu nasakhayaa haddana habeenkii mugdigiisa ayuu nasakhayaa oo meesha qoraxdu ka soo baxdo mugdi sii jiri maayo hatta bil haday jirta bisha markaas iftiinkeedii waa dimaya maxaa yeelay waa laga awood badan yahayo bisha waxa horaan soo marnay bisha waxay iftiinka ka qaadataa qoraxda laakiin qoraxda ayada waxa weeye iftiinkeeda ayada ayaa la wadeeca dhigay wa anzalna miyanan soo dejino ilaahi min almu'siraati ilaahi dabaylihi malmaroojinayay ma an ma ayuu dhahay madar sajaajan oo shumid badan isfahamti alwa laakiin isfahamtu waa li taqriir weeye wa anzalna wa dejino ilaahi aayada ilaahi subhanahu wa ta'ala oo tusinaya baxsiga iyo qiyaamada iyo awoodda ilaahi tusaaleynaya لكن آيات كمان عد في ريس جرين وأنزلنا وندجنو الإلهي من المعصرات والإلهي والصحاباتك التي حان لها أن تبدر أيام معصراتك الإلهي كالمعصر الجارية وي قبرنا مركاسي وحوي مركي وحوي ديقو أو كدعتغو ولا مروجيا مركاس التي دند من الحيض ساسو كالنتود أيا وحوي مدركاس أيا لوغسو مروجين أيا صحابكاس oo malaga ku shughul ka lahay ayaa ka soo maroojinaya Allah wuxuu dhahay subhanahu wa ta'ala wa anzalna wa nudjinaw ilaahi min almu'sirati dabaylihi maartay la maroojinayo ilaahi ma an madar ayaanu ka soo dejinay ma aasoo sajaajan oo shumid badan linukhrija inaanu soo bixino ilaahi bihi bisabil maa'i ma sababkiisa habban habad aan ku soo bixino iyo wa nabaad iyo wa jannatin beerayaalo الفافن او اسكو مرانو الهي لنخرج انا نصوب حنو الهي به بسبب الماء مدركا سبب كيسه حبا حبد سيده مثلا waxa way abuur kala abuuray way sida maaratay galeeydi digirti bariiski waxa soo dhan ayaa laga wadaa waxa markaas xabada ka soo baxa way oo dhulka lagu ridaayo
iyo wa nabaatan nabaad uu dhahay ilaahay nabaadkana geedahaas caadiga sida tiinka iyo qeyrkiisa iyo qurac iyo qansax iyo wax kasta weeye iyo wa jannaatin beerayaalow dhahay ilaahay basaatiinta oo waxa weeye markaasi geedaha simaartu ka baxdo alfaafan oo dhahay ilaahay oo isku maran oo dhahay ilaahay oo markaasi isku dhex jirta multafatan jamcu lafiif weeye markaasi hayla geedahaas markii ay baxaan saas ay markaasi isu dhex gelayaan wa nabaatanna waxa weeye nabaadku waxa weeye ma yuqtaatu bihi wax la quuto iyo waxa ma yuclafu bihi iyo wixii wax lagu calfiyo xoolaha la siiyo sida maaragtay tibniga iyo xashiishka oo kalentood intaas ayaan maaragtay ayaanu soo dejinay ilaahay subhanahu wa ta'ala taas waxay tusinaysaa ilaahay subhanahu wa ta'ala qudradiisa iyo wahdaaniyada alle ayay tusinaysaa intaas soo adila alla markuu soo oogay ilaahay wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala inna yawmal fasli wa ilaahi kala saarka maalintiisa oo ilaahay kaana wuxuu ahaaday yawmul fasligaasu miiqaatan waqtu yabooha ayuu ahaaday marka hadda dadka wax kasta dii loo cadeeyay hadda cidii wax rumaysay cidaan rumaynba maalintan baa la gaarayaa markaasaa waxa weeye la kala saaraya khalaa'iqda markaasuu dha ilaahay inna yawmal fasli wa ilaahi kala saarida maalinteeda yawmal fasli bayna al khalaa'iqda la kala saarayo kaana wuxuu ahaaday dha ilaahay miiqaatan miiqaad ayuu ahaaday waqtiga la isoo waqtan li sawaabi wal ciqaabi way waqti waxa weeye la is sawaabinayo ama la is ciqaabayo labadaas way yawma maalin ayuu maaratay yawmul fasligu miiqaad ahaaday dha ilaahay yunfakhu la afuufaayo fi suuri buunka la afuufaayo oo fata'tuuna aad imaanaysaan oo dha ilaahay qubuuraha aad ka imaanaysaan afwaajan xaalatiin kuwa jamaacaad yawma maalimow dha ilaahay ayaa yawmul fasligu miiqaad yahay yunfakhu la afuufaayo fi suuri buunka la afuufaayo waa nafqada saaniyada weeye afuufida labaad waayo buunka la afuufaayo fi suuri buunka oo dha ilaahay subhanahu wa ta'ala oo fata'tuuna aad imaanaysaan qabuurihiina aad ka soo imaanaysaan oo mowqifka aad imaanaysaan afwaajan xaalatiin kuwa jamaacad oo kooxa ah macnaha afwaaj waxa weeye jamaacad mukhtalifa weeye dadku dad iskhilaafsan ayagoo ah ayay markaas waxay imaanayaan maxsharka qiyaamada imaanayaan waliba ahadiisa ku soo aroortay oo xadiis lagu wariyo Muaad ibn Jabal ayaa waxa uu dhahay waan dhahay ya rasuulallah ara'ayta qawla Allah ta'ala yawma yunfakhu fi as-suri fata'tuna afwaja ayadaas tafsiirkeeda bal nooga waran maalinta dadku ay imaanayaan ayagoo jamaacada markaasuu nabigu waxa uu dhahay alayhi salaatu wasalaam Muaad ibn Jabal laqad sa'alta an amrin 'aziim arrin aad weyn ayaad su'aashay markaasaa nabigu suma arsala aynayhi baakiyan indhihiisa iyo kor ku fiishay asagoo ooyaay maxaa yeelay nabigu waxa ka hor muuqda waxa markaas dhacaya oo cajiibka markaasuu dhahay rasuulka alayhi salaatu wasalaam dadka waxa la soo kulminayaa ayagoo 10 sinfi oo umadayda ayaa la keenayaa oo kala tagsan ayaa maxsharka qiyaamada la keenayaa yumayyizuhumullahu ta'ala min jama'ati almuslimiin waxa weeye qaybahaas ilaahay wuxuu ka soocayaa jamaacadka muslimiinta ilaahay suuradooda ayuu bedelayaa qaar waxa lagu keenayaa ala suurati alqirada daanyeera suuradooda ayagoo leh qaarna waxa lagu keenaa ala suurati alkhanaazir doofaara suuradooda ayagoo leh wa ba'dhum qaarna waxa la keenayaa lugaha ayaga oo loo rogay ee markaas wajiga lagu socodsiinayo quraankan waa ku soo aroortay qaarna waxa weeye ويسحبون عليها وجهها ayaa lagu jiidaya oo saas markaas wajiga dhulka loogu jiidaya وبعضهم عمي قارنا وإن لئهين مركاسي نقنقنايان ميلي آذان ما يقانين قار waxa weeye waa dhiga la'yihiin waa maqal la'yihiin waa indha la'yihiin fahum la waxba ka simaayaan bacdi goorne yam maaratay yam quduna alsinatum qaarna carabkooda ayay cunayaan fahiya mudallatun ala sudurihim carabka waxa weeye xabadka uga soo dhacay markaas ay carabkooda ay cunayaan yasilul qayhu min afwaahim afkooda maal ayaa ka daadanaysa lucaaba markaas ay taqadaruhum ahlul jam'i dadka meesha lagu soo aruurshay ayaa qarmoonsanayo qarmoonkooda markaas aan la joogi karin
qaarna waxa weeye ayagoo lugaha ka go'an gacmaha ka go'an ayaa la keenayaa qaarna waxa weeye ayagoo laga lalmiyay juduuc oo min annaari laaman oo naara laga lalmiyay ayaa la keenayaa qaarna waxa weeye ashaddu nadnan min aljiifi ayagoo waxa weeye ka qarmoon badan shayga baqtiyo dameer baqtiyo ka ur badan bacdigoodna waxaa la keenayaa yalbasuuna jalaabiiba saabiqa min alqatraan laasiqatan bijuluudihim qaarna waxaa la keenayaa ayagoo loo xiray jalaabiib oo markaasi waasaca oo laami karkaraya ah oo haragooda markaasi ku dheganoo cunaya kabacdi uu rasuulku kala bixiyo u dhahay mucaado waxa u dhahay dadka markaasi daanyara suuradooda ah oo la sulu keenayo falqataatu min annaasi u dhahay waa dadka isku dira namiimayaasha dadka isaga dab qaada oo isku dira dabka horiya kuwaas weeye suurad daanyara qiyaamo iyagoo laha la keenayaa kuwa markaasi camaladiina calaa suurati alkhanaasiir doofaara suuradooda kuwa lagu keenayane fa ahlu suxti walxaraam u dhahay walmaksi waa dadka waxa weeye xaaraanta iyo maaragtay boolida iyo maaragtay canshuurta maaragtay leejada iyo kuwa cuna weeye waxa loo yaqaano ayagana doofaara iyagoo suuradooda ha la keenayaa kuwa markaasi wajiga dhulka loogu jiidaayo oo lugaha kor loogu rogane fa akalatu riba kuwa ribada cuna waaye ribada dadka cuno ribada markaasi beec markaasi ribada ku cunaaya kuwaas weeye markaas oo maalkooda ribadu ka buuxdo oo ganacsatada u badan waa leeyahay kuwa markaasi indhaha la leh fahum waxa weeye markaasi man yajujuuna fil hukm dadka xukunka uu jawr fala weeye maxkamadii wada xog jooga jawr ayuu falaya xukunka uu jawr falaya shariicadu sayid wax ku xugmaayo laalu show qaadanaya waxa soo kala weeye in dalaan ayagoo in dalaa qiyaamo la keenaya waa masumul bugmu huwa maqalka la leh oo afka la'ana fahum alladina yu'jibuna bi'amalihim kuwaas waa kuwa amalkooda la ajaba oo xogaa dhilaho salaada haday dukadaan quraan dhil akhriyaan meel ay istaagaan oo wax walba sameeyay isdhaay qofka muuminka waxa la rabaa amalkiisa inaan la tusin qof hadii amalkiisa la tuso waxba gacan kuma haayo waa alladina yamluquna alsinatum kuwa carabkooda cunaaya ee maashu ay ka daadanayso ayagana waxa weeye waa culimada iyo kuwa wax qisooda alladina yukhalifu qawluhum ficlahum kuwa soo qowlkooda ficilkooda u khilaafsan yahay dadka way wax u sheegayaan saas way leeyihiin dadka wax u qisoonayaan qowlkooda iyo ficilkooduna isma leh oo ayagoo afka saas ka sheegaya wax kasay hoos ka wadaan markaas waxa weeye ficilkoodu uu xun yahay warna saasay u daldalayaan kuwa gacmaha laga gooyay iyo lugahane waa kuwa alladii yudunal jiirana dadka jiiraanka dhiba dadka diriska dadka dhiba ayagoo lugaha iyo gacmaha ka go'an ayaa qiyaamo la soo bixinaya kuwa maaragtay laga lalmiyay juduucda laamanka naarta ah fasu'aatu bin naas ila suldaani waa kuwa markaasi ninka suldaanka ah oo amiirka ama madaxweynaha ama boqorka kuwa dadka markaasi oo bari ah oo dambiga lahayn u geynaa jawaasiista oo waxaas ka shaqeeya weeye waa alladina hum ashaddu nadnan min aljifi kuwa markaasi ka qarmoon badan baqtiyay falladina yatamatta'una bishahawaati waa kuwa ku raaxaysa shahawaad wayamna'una haqqallahi min amwalihim waxa weeye shahawaad xaraama ay ku raaxaystaan waxayna markaasi diidaan xaqa ilaahi maalkooda kama bixiyaan waa alladina yalbisuna kuwa jalaabiibta jiidaaya oo laamiga ah karkaraya fahlul kibri dadka kibirka badan waay wal fakhri faanka badan wal khuyala shaafeertanka badan saas ayaa markaas qiyaamo lagu soo bixinaya marka qaybaha dambe 10 damaan ku qaadanayna sayashada 10